wejigii koowaad ee nabadeynta beelihii ku dagaalamay koonfurta gobolka Sool ayaa lagu soo xiray deegaanka Dhumay ee koonfurta gobolka Sool waxaana qayb libaax leh ka qaatay isimada dhaqanka gobolka Sool cuqaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaankaasi kulankan lagu soo xiray wejigii koowaad ee nabadeynta ayaa waxa ka hadlay ergooyinka kala socday beelihii dhawaan diriirta ku dhexmartay kuwaas oo goobta ka cadeeyay inay diyaar u yihiin go'aamada ay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta isla markaasna ay ka shaqeyn doonaan nabadeynta dadka walaalaha ee wada deegaanadaasi waxaan idinku dardaarmaynaa waxaan idin faraynaa wixii ilaahayna farayo wanaaga wixii dhacay shaydaan baa ka dambeeyay shaydaan baa ku shaqale wax wanaagsan inaad ka dambaysiisaan waxaan leeyahay marka ugu horeysa waa qaadanay waxayna yiraahdeen waanu ku soo dhaweynaa waanu ku guuxnay raalli baanu ka nahay anoo ku hadlaya afka beesha maxamed garan anigoo afkii ku hadlaya beesha khayr cabdi waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan soo dhaweynay waxaanu nahay sidaa hadda loo sheegay dad walaalaa ehela isku mid ah abwaan jaamac kadiye cilmi iyo abwaano kale ayaa goobta ka soo jeediyay tixag gabaya oo ku saabsan nabadda isla markaasna dhiirigelin u sameynaya labadii beelood ee shaqaaqadu halkaasi ku dhexmartay waana dhexdhexaadinaya oo cid baana dhexdhexaadinaysa wallaahi waa been oo billaahi waa been oo tallaahi waa been waxbaanu dilaynaa waxbaanu qabanaynaa Itoobiyaana wax ka soo qabanaynaa ma odhan karo ilaahay baan been u sheegaya hadda idhaa wallaahi idinkoo runta isu sheega oo idinku nabadda wada qaatamaya cidina inay dhexdhexaadin karin bal maxaad ogtihiinoo idinku meel dhigateen dad yahow yaa idin inkaaray asmada iyo idin cabsiiyey indhaha iyo idinka duubay oo dhagaha iyo idinka awday qalbigiinna nabaaday bal maxaa engejay wixii aad maxumeeyo ilaahay looma nisbeeyo ee afmiishaar hadal jeexayo oo uurka maali u jiifto waxaanuu akhriyaayo ku adeeganaya mid kale oogadiisa oday aad u malaysidoo arrintiisu janjeedho oo intii loo magacaabay ummaddii ka dhex saaray oo afarba meel ku shirayso islaan hoosta ka guuxdo oo afuufaysa warbeena kuwaasaan aqbasheen oo ilaah baad caasideen oo ummad yahay sharafkiinna waad ilowsantihiina isimada dhaqanka deegaanada ayaa kula dardaarmay xoojinta nabadeynta labada beeloodba iyadoona si toos ah loo gali doono xalinta dhibaatooyinkii kala gaadhay labadaasi beelood ujeedada bayaanka ergooyinka masaalixda ee Dhumay kadib shaqaaqadii colaadeed ee dhex martay labada beelood ee walaalaha ah kalana ah Cabdi Garaad iyo Maxamed Garaad colaadaasi oo keentay dhimasho dhaawac baraka iyo burbur dhaqaale oo baahay dhibaatadaasi kadib waxaa meelo kala duwan isugu yimi ergooyin nabad raadis ah kana kooban isimo cuqaal culimaawdiin guurti iyo waxgarad kale muddadii ay hawsha nabadeed ku jireen arrimahan soo socda kow in labada beelood aqbaleen nabad iyo xabad joojintii ayna ku dhawaaqeen labo waxaa kale oo ay ergooyinku nabaddu ku guuleysteen inay kala raraan ciidamadii labada beelood ee dagaalamay iyadoo qolo walba la geeyay goobo loo cayimay dhinac walba si kama dambays ah u hirgeliyaan xabad joojintii hore ay looga wada dhawaaqay ay wada qaateen in ciddii ku xadgudubta xabad joojinta loo aqoonsan doono in ay nabaddii jabiyeen waxaan inii waxaad la tiraan waa nabad qaadanay wixii dhacay haatan anagu dib ugu noqon mayno war wixii dhacay waa markii saddexaad war 13 sannadood saddex gole oo taa oo kalaa saddex gole oo taa oo kalaa ee saa ka socota yaa samayseen war bal maanta waxaad tirahaan waa nabad qaadan war waad noo soo shirteen war waad noo timaadeen war haddaad duca naga rabtaan waxaanu doonaynaa maanta in qalbi wanaagsan oo farax leh aad maanta nabadda carabkiina aad ka tidhaahdeen golaha kaga hadasheen inay noqoto mid
raandhiis samaysa. shirkan nabadeynta ayaa ka sii socon doona deegaanka dhumay maalmaha soo socda iyadoona ergooyinka nabadeyntu ay bilaabi doonaan xalinta dhibaatooyinkaasi. Samiir Siciid Bile, Bulsha TV, Laascaanood.